kuuriyada waqooyiga Kuuriya oo dhaca bariga qaaradda Aasiya ayaa waxa badkiisa dhuleed lagu qiyaasaa 120,540 kiiloomitir iskuweer. lacagta dalkaasi laga isticmaalo ayaa la raahdaa North Korea Won. tirada dadkiisa ayaa lagu qiyaasaa 25,780,000 oo qof. Kim Il-sung waa asaasaha Kuuriyada Waqooyi ahna awowga Kim Jong-un kaasoo dalka aad looga qadariyo. sidoo kale Kim Il-sung waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaare sanadii 1948 ilaa 1972. intaa wixii ka dambeeyay waxa uu noqday madaxweyne sanadii 1972 ilaa 1994. kadib markii uu dhintay hogaamiyihii Kim Il-sung 1994 waxa awoodii la wareegay inankiisii ahna aabbaha Kim Jong-un isagoo isna wadanka maamulayay sanadihii 1994 ilaa 2011. ugu dambeyn isagoo ku geeriyooday wadanka Kuuriyada Waqooyi isla sanadkii 2011. intaa kadib dalka waxaa la wareegay Kim Jong-un oo ilaa hadda ah madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong-un waxa uu dhashay sanadii 1984 isagoo haatan jira 38 sano. sidoo kale Kim Jong-un waxa uu sanadii 2009 guursaday xaaskiisa Rosolja kuwaasoo haatan haysta hal gabadh oo u dhalatay 2013. sidoo kale Kim Jong-un waxa uu la walaalyahay 5 qof. Kim Jong-un sidoo kale waxa uu hogaamiyaa xisbiga muxaafidka ee loo yaqaan Workers' Party of Korea kaasoo uu la wareegay sanadii 2012 hoggaankiisa. Kim Yo-jong waa walaasha hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya taasoo loo saadaalinayo mustaqbalka inay la wareegi doonto hoggaanka dalka taasoo bedeli doonto walaalkeed. dalka waqooyiga Kuuriya waxa uu xal leeyahay 3 wadan kuwaasoo kala ah China, Russia iyo Koonfurta Kuuriya. xadka ay China wadaagaan ayaa ah webiga Amnok. sidoo kale xadka ay Russia wadaagaan ayaa ah webiga Tamra. halka Koonfurta Kuuriya ay wadaagaan xaduleed. Kuuriyada Waqooyi waxay ka mid tahay dalalka ugu awoodda badan caalamka iyadoo kaalinta 28aad kaga jirta dhammaan dawladaha caalamka ugu awoodda badan iyadoo haysata ciidan gaaraya 110,000 oo heegana iyo sidoo kale 950 diyaarad iyo hubab kale oo casri ah. waa anigoo ah Maxamed Saciid kaagana mahadnaqaya ka qayb qaadashada daawashada video.